waxaa ka qayb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac agaasimaha fulinta ee Solja xubno ka tirsan guddiga fulinta ee ururka Solja qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka howlgala dalka gaar ahaan caasimada sida TV-yada idaacadaha wargeysyada iyo shabakadaha wararka kulankaasi oo socday muddo hal maalin ah ayaa ujeedadiisu waxay ku qotantay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dhinaca dhaqaalaha haysata suxufiyiinta ka howlgala dalka waxaa kulankaasi si weyn looga dooday shuruucda iyo xeerarka saxaafadda inay lacag ka qaadaan siyaasiyiinta taasi oo dhaawacaysa haybada taas darteedna loo baahan yahay sidii suxufiyiinta ay u baran lahaayeen nidaamyo kale oo ay dhaqaale ku abuuran karaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahmiyadda ay leedahay in xal loo raadiyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha dhinaca dhaqaale yarida ee haysata warbaahinta Somaliland gaar ahaan suxufiyiinta ilaahay baa mahadle in imka labadii bilood u dambeeyay saaxada saxaafadda horumarka Solja ka muuqdo marka ajendaha maanta haduu yahay sidee suxufiyiinta iyo mihnadayaasha saxaafadda iyo ururada saxaafadda fundraising iyo dhaqaale abuur lagu sameeyaa waa qodob wanaagsan oo u baahan naqshadeeda oo u baahan aqoonteeda oo u baahan daraasadeeda oo u baahan marka aqoonta la eego in la sameeyo SWOT analysis gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in kulankani uu daba socdo kulamo hore oo lagaga hadlayay sidii dhinaca dhaqaalaha looga taageeri lahaa warbaahinta Somaliland isla markaana waxay ka codsadeen qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga inay wax kala qabtaan amuurtaasi geesta kale waxay isna halkaas ka hadlay suxufiga rugcadaaga ee Mijir Qaadi Maxamuud oo ka waramay kaalinta ay warbaahintu kaga jirto bulshada isla markaana looga baahan yahay wariyaasha in aanay noqon kuwo cid gaar ah u adeega sida darteedna aanay mihnadooda u adeegsan dhinaca xul balse dhinaca wanaagsan dhismaha qarankooda iyo waliba isu dheelitirka wararka ay hadii jeer liishaan ka saaraan waxa kale oo uu sheegay Mijir Qaadi Maxamuud in hadii ay warbaahintu shakhsi gaar ah weerarto amba lagu barto in ay lacag weydiiyaan mas'uuliyiinta inay taasi wax u dhamayso sumcadoodii iyo kalsoonidii ay bulshada ku qabi lahayd wararkooda Yoonis Calnuur oo ah khabiir la taliyo oo ah wasaaradda warfaafinta oo isla madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la isugu yimaado oo fikrado lagu kala qaato kulamo lagaga hadlayo danaha warbaahinta halka geesta kale isna uu kulankaasi hadal kooban ka jeediyay Maxamed Xasan Cali Weji oo kamid ah khabiirada dhinaca warbaahinta waxa uu sharaxay sida ugu haboon in looga bixi karo caqabadaha warbaahinta hortaagan ee aan dhaqaale xumida isagoo tilmaamay oo kale in wax soo saarka warbaahintu uu ku xidhan yahay hadba dhaqaalaha ay helaan inta uu leeyahay Faysal Maxamed Cabdi Faysal Farfarle isaguna kulankaasi goobjoog ka ahaa kana mid ahaa khabiirada aqoonta dheer u leh iyo xeeldeerida dhinaca mihnada saxaafadda ayaa isaguna halkaasi wuxuu ka soo jeediyay talooyin ku wajahan saxaafadda iyo saxafiyiinta